waxa inoo ku waroon oo war laga jirinaya waa gudiyada xaafadaha iyo madaxdooda wixii aynu ka gaaro haddii la qadaro waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiyaha xaafadda Wadajir Fuad waxaanu codsanaynaa waxa magaalada ka jira wax xaafad iyo suxsuxi wax ka qaban karta ma aha annagu wixii amniga iyo mobile furasha annagu aan dawladda la kaashan doonin annaga caruuraha iyaga isna qaano soo qaban doon laakiin tuutaha kan magaalada lagu dhacayo iyo qoryaha ka waaweyn oo BKM-yada habeenkii intii la isku wada qabtay deyrkiina loo ka soo daadanayo la leeyahay dahabkana fur lacagtiina sheeg biinkaaga lambarkiisina sheeg waa dawladdu waxa ka qabato oo waxa weeye dawladdu ha isku noqoto oo tuutaha magaalada gudoomiyaha xaafadda Wadajir waxaan halkan ugu yeerayaa gudoomiyaha xaafadda Wadaag xaq ma jiro aawe waxaan leeyahay hadday bilays tahay iyo hadday wasiir yihiin iyo hadday dawladda tahay magaalada ama waxa ka qabteen ama amniga faraha ka qaadeen 4,000 kabrood oo halka la soo fariisiyay iyagii baa guryihii irida mari waayay oo la furanaya oo la dilaya oo waxa weeye maarayagii baa naftii qabatay hadalkayga waxaan ku soo gaabinayaa waxaan leenahay gudoomiyaha gobolka Nugaal gudoomiyaha degmada Garowe xildhibaanada shalay noo dhaartay taliyaha bilaysiyada hadalkayga waxaan ku soo gaabinayaa iyaga noo dhaartay annaguna samcan wadaacan baanu leenahay amniga faraha ka qab salaanka bacdi maanta meeshan waxa la iskugu yimi amniga inaan ka hadalno amniguna waa nolosheena koowaad qof walbana u ah inuu ku noolaado hadaa amni jirin ma jirayo in la noolaado nolosha waa adkaanaysa marka xaafadahaan iyo markaan ka hadalno xaafadda Garowe u weyn baa anaguna hodan waana xaafadda u caruurta badan Garowe xaafadaas amnigeeda ayaamahan dambe khalkhal buu galay in ba ka sii daray xagaabaxa noogu daray anaga aad baan noogu soo xagaabaxa dadka guryooga jaban yihiin baan nahayo dadkaana la dega ciyaaladana waa nagu soo fasaxaan marka inta xagaaga dib weyn oo saa'idaan qabnaa waana dadkeygii oo dul qaadanaynaa waxaan rabnaa insha Allah amniga inaan ka shaqeyno hadaa gudinahay iyo gudoomiyaha anu ugu horeeyay iyo degmada iyo gobolka kulli iyo taliyaasha xaafadaas xalay aad baa hadda uga shaqeynay amniga annaga ciidanka oo aad noola shaqeynay iyo duqa magaalada oo xalay aad noola howlgalay dad badan xalay waa qabanay waana xirxirnay haatana diyaar baa u nahay inaan ka shaqeyno u soo jeedno u istaagno habeen iyo maalin ninna ka baqamin xataa kan guryahooda gala u galeynaa ninna ka baqamin cabsina kama qabno waan u dadaalayna insha Allah biidinida hadda halkan waxa ugu badan oo jooga waa dumarkii xaafadaha wax ka shaqeeyana waa dumarkii raggii shaqada furuntaar inay ugu shaqeeyaan xaafadihii ma ogola maanta inta halka fadhiyo waa dumarka iyaga la dhibaateeyo uma dhibaateeyaan maayirka magaalada iyo gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsanayaa meesha aad dumarkan soo fariisinaysaan raggi ina keentaan wiilashii yar ina keentaan nabadoonadii ina keentaan ganacsatadii ina keentaan raggu iyaga dhibaatada geysanayo dumar ma geysanayo annagu halkan waa imaanaynaa waana shaqeynaynaa laakiin anaga guriga ka bixila albaabkii guriga anaga ka bixila habeen walba oo noo dhaartaa mobiladana la ka qaatay guriga baana la ku dhigxinaya oo tuugada baa noo soo dhacaysa waxaan u malaynayaa inay haweenku iyagoo xanaaqsan si kulul u hadleen waxaana keenaya aniga waxa weeye Soomaalidu waxay dhahdaan qofkaas waxaas khabiir buu ku yahay waxaan u malaynayaa dawladda hoose waxaan imin 2005 waxaan ahaa xildhibaanadii ugu horeeyay dawladda cadde Puntland laga asaasay haddana shaqaalan ka ahay marxaladda maanta taagan waxay taagnayd waagi cadda dawladda cadde ay jirtay sababtoo ah barabakasyadii oo muxuu ahay aan taargalahayn baa wax lagu dhacayaa waxa moodaa furashadu inay ahaan jirtay waan marmar badan gacanta ku dhignay hadaan degmada nahay caruuri wax furan jiray aadna looga seexday laakiin maanta wacyiga jira waa ka duwan yahay waxaan u arkaa inuu yahay mid siyaasadaysan oo aysan dawladdu ogeyn sababtoo ah waxa weeye wadanka dawlad baa ka jira dawladda hoosana xoogaal bay waxay u tahay oo dawladda hoose waxa loo yiri xildhibaanada iyadu waxay ku mashquulsan yihiin wixii deegaanka inay wax ka qabtaan muxuu ahay ta loo yeero waxgaradka culimada maxay to ganacsatada ragga xaafaduhu waa 230 iyo xoogaa 31 gudiyada ka dhisan ragga ku jira kama badna 10 kama badna marka waxaan leeyahay tii horaan ku darsanayaa waa inuu noqdaa shir ballaaran anaguna ka qayb galo lagagana doodo magaaladana inuu istaagno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
waxaan ku xijinaynaa xildhibaan maxamed khaliif oo amniga ku ataaj gareys la sugana fadal xildhibaane sababta ay ku tahay cid walba maaragtay dhibaatadii ama way taabatay ama way taaban doontaa haddii aan wax laga qaban guddiyada xaafaduhu waa jaranjaro ka mida maaragtay jaranjarada maamulka dawladda ujeeddada loo dhisana waxay ahayd inay maaragtay xiriir maaragtay ay roolkooda inay qaataan bay ahayd roolka ay qaadanayaan lambar 1 waxaa ah maxaan ku rahdaa amniga ayaa ah iyaga ayaa xaafadihii iyo maxaan ku rahdaa guryihii iyo dadkii iyo iyaga ka warqaba waxaa la rabaa inay maaragtay aad iyo aad inay u shaqeeyaan inay la shaqeeyaan nin maxaan ku rahdaa saldhigyada inay la shaqeeyaan degmada iyo golaha deegaanka inay la shaqeeyaan gobolka iyagu hadda ciidan maahan oo wax qaban mayaan laakiin waxaa la rabaa dadka maaragtay xunxun ama dhibaatada sameynaya oo guryaheena ku jira inay maxaan ku rahdaa guddoomiyeyaasha iyo horjoogayaasha iyo guddiga kale oo xubnaha ah inay ka warqabaan soo report gareeyaan haddii markaas maxaan ku rahdaa ciidanka booliska uu qaban waayo wax ka qaban waayo ama degmadu wax ka qaban weydo ama gobolku wax ka qaban waayo hadda markaas waxa weeye canaan maaragtay dad gaar ah la canaantaa way imaanaysaa laakiin hadda waxaa la rabaa inaynu insha Allah bismillaahi kariim wixii hore oo aynu ku jiray inaynu ka baxno inaynu boorka iska jafno inaynu maaragtay wiilkaaga hadduu yahay oo gurigaaga joogo oo dulmi samaynayo dulmigii aduu dib kugu soo noqonayaa marka waxaa la rabaa dulmigii intuusan dib kugu soo noqono naftaada gelin oo caruurtaada kala gelin oo maalkaaga gelin oo gurigaaga gelin waxaa la rabaa in maaragtay aad isagii soo qabatid dalka iyo dadka hadduu caqabad ku yahay waxaa la rabaa inaad soo qabatid haddaadan qaban karna waxaa la rabaa inaad report ka keentid insha Allah bismillaahi kariim hadda inta aan maaragtay lay qaban macna ka wareega aan lay oran hadalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaanu rabnaa in qolo walba ilaa fooq ilaa taxti waxaanu rabnaa oo muhiim u yihiin maxaan ku raahdaa xaafadaha maaragtay maxaan ku raahdaa guddiyada xaafaduhu oo adeegsanaya bulshada inay maaragtay waajibkooda inay gutaan maxaan ku rahdaa degmada iyo gobolkuna inay maxaan ku rahdaa iyo taliyaashuna inay maaragtay heegan ay u ahaadaan sidaasaan maaragtay baan soo jeedinayaa laakiin kiiska aan joogsanayn oo hooyooyinkii caanaha gadanayay moobilada laga wada dafayo waa kiiska moobil furashada oo wiilashaasu waa wiilasha inagu aan dhalnay fiiriya meheradaha kan la wada fariisto kulli mid aan foodu ahayn baalla saa u taagan jeegaduna aysan xirin kuma jiro dhammaantiinna adinkaa wada dhalay guryihiinu ka soo wada toosa tooreedu hooyada caanaha gadaysa moobilka ka furan gurigiinu la seexdaa raalli baad uga tihiin guryihiinna kama warhaysaan waa hooyooyinkiina moogta marka meeshaan la keeno saldhigga anigu saldhigga intaa xiriir baan leeyahay waan tagaa saldhigga marka la keeno dadka ugu badan oo ka daba imaanaya waa hooyooyinka ima waa sii daynayaan oo markaas dhahayaan kabaha iyo shaatiga soo sii ima canjeeladii bay u wadaan iyo suqaarkii bay ka daba keenayaan wuxuu mudan yahay intii la garaaco oo waliba booliisku hadda waa joogaan intay garaacaan dhiig horta afkay dabada inuu ka tufo markii fooda dheer tahay inuu ka waasho kiis moobeela iyo kiis kale oo dembiya inuu galo ka daahir ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba waxaan aragtida kaga duwanahay dadkii halkan yimi oo ka hadlayay anigu waxaan aaminsanahay caasimadda aynu joogno ammaankeedu 95% waa fiican yahay weligeedna waxa la fishaa waxa wanaagsan baa la fishaa hadda waxaan u malaynayaa waxyaalaha dhacdhaca oo maalmaha kana dhacaya waa moobil furasho iyo wax aad u yar inteena caawa haddii la weydiiyo oo la yidhaahdo gurigaagii maxaa ku tagtay nabad buu ku tegey kulligeen yayna been sheegin waxa yarka ah oo hadda soo kordhayna waa wax aynu iska kaashan karno sidii awal baan iska kaashan karnay marka magaalada ayaa khalkhal la gelin amni darra ma jidho wiilal yar yar oo moobil la furta ayagana saynu isaga qaban jirnay baynu isaga qabanaynaa marka aan waxaan codsanayaa cod dheer ku leeyahay yaan magaalada iyo caasimadda iyo gobolka sumcadda laga dilin amni darra ma jidho amnigu waa fiican yahay inta yartaa oo ina ka khaldanna waxa hoos xoogaa u dhacay wada shaqaynteena iyadana waa siyaadinaynaa anu cid aan dhaliilaya ma jidho ciidamada amnigu waa shaqeeyaan gobolku waa shaqeeyaa degmadu waa shaqeysaa annaga xildhibaanadaana waa shaqeynaynaa haddaan hore u shaqeyn jiray haddana waa shaqeynaynaa
xaafaduhu waa shaqeeyaan waa mahadsan yihiin anugu marka waxaan oranayaa inta yartahay oona ka qaldanna waa saxanaynaa amnigana gacantaynu ku dhigaynaa awalba gacanta innaga waxa weeye ilaahay baa maaragtay inoo hayay innaguna waa wada shaqayn jirnaa haddana waa wada shaqaynaynaa gudoomiyaha gobolka waxaan salaamayaa degmada waxaan salaamayaa bulshada dhammaan kulli waa salaamaya saxaafiyiinta inta waa salaamaya bismillaahi raxmaani raxiim salaanka bacdi waxaan hay taliyaha saldhigga bartamaha shaqada waa ku cusba hadda ka horna waan u sheegay tv-ga daliilo badan baa jira daliilo waa iska yimaadaan wax walbana way dhacaan waxa weeye meesha horta amnigeedu siduu hadda xildhibaanku sheegay aad bay wanaagsan tahay laakiin dee debadaha waa ka dhacaan wax ka xun baa ka dhaca waxyaalaha yararka ah oo hadda dhacana haddii ilaahay waxbaan ka qabanayna laakiin midda koowaad waxaan daliilayaa annaga waa nalaliday idinka waan naliilaynaa anigu waxaan taliyaha saldhigga muddo hadda 20 cashaa baan joogaa weli guddoomiye la soo hadlo yidhaahdaa halkaa igu imow saasaa jidha ma hayo yaa sheegaya ukaade maya dee suaa ukaade waxaan leeyahay marka anigu waxaan diyaar inii ahay hooyooyin iyo aabbayaal inaan idila shaqeeyo oo ilaahay hortiisna ka ballan qaaday madaxda iga sarreysana ka hor ballan qaadaya haddaan wax ka qaban waayo halkaasaan ka baxaya xataa xilweydin mugdo waxaan idin kale idinka codsanaynaa annagu waxaan nahay dowladdiinni ciidankiinni amnigiinni baan nahay wiilashaan la xiraayo midaan kii la xiro baaris baa u soconaysa ama waa lagu helayaa ama waa lagu waayayaa laakiin 2 daqiiqo gudahood haddii lagu helaa daba joogto dee kiiska iga hor istaagaysaa aniga marka way baarista naloo daayo hadduu wiilkaas uusan wax qabin damiinka ku siimayna halkaas ka sideena madaxdana uu sheegay sharciga ku sideena hadduu dambi leeyahayna waa la raasayna gudoomiyaha gobolkan waxaan ka codsanayaa maadaama gobolka uu joogo madaxweyne gobolka noo yahay gudoomiye waxaan ka codsanaynaa ciddii kiisaska lagu helo mobil furashada inaan gobolka jeel ka mid la geeyo la albiyo dhuldan laga soo say noo lugooyeen baa anaguna u lugoynayna waana ballan waxaan kaloo ku darayaa intaas dhammaantiin wayna salaamayaa aniga telefoonka aan leeyahay waxba ka qarsamay tv baan taagana waa 7579 wey sida heeganka buu firiinii yahay saacad walba inay ka qabto anana diyaarinaa laakiin waxaan idinka rabaa inay ila shaqaysaan 7579 diyaar waxaa inii ahay aan waxba ma qarsado diyaar waxaan u ahay inaan u dhinto dalkayga dadkayga tan bulshada waxaan leeyahay kiisku waa dhacaa laakiin khasab maaha in anagu mar walba meesha taagannahay anugu dareys baan qabaa haddaan dareys qabo shaqa meel baan ciidanku meel baan ka shaqeynaya meel kale wax ka dhacaya qofka dhar cad ah oo saacad walba taagan oo meel ama meher ha ahaato ama meel wax lagu gaday ha ahaato waa idinku nala shaqeeya waxaad samaysaane war hebel halkaa imow meeshaas waxaasaa ka jira waa imanayna haddaan iman weyno haka qaban weyno madaxdayna xakutuba nala fadhidaay narboodgareeya ayna ka tegin kuwa ka fiican ha yimaadeen meesha laakiin waxayna ka doonaynaa inaan nala shaqeysa intaa ka badan waxba ku dari maayo waana mahadsantihin gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa caasimadda Axmed Siciid Muuse Axmed Barre gudoominka gobolka madaxda degmada iyo xildhibaanada golaha deegaanka madaxda xaafadaha iyo waaxyaha degmada Garowe saxaafadda iyo marti sharafta kale iyo saraakiisha ciidanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan ugu faraxsanahay discussion-ka ama dooda noocaana waana midii aanu maanta shirka u qabanay waxaanu shirka u qabanay magaalada Garowe waa magaalada uga amniga badan ee guud ahaan geyiga Soomaaliya ee magaalooyinka waaweyn kuwa yaryar marka laga reebo laakiin ayaanta waxaan dareensanay ayaynu aragnay waxaan dareensanay dhibo ay sameynayaan caruurteennii guryaheena ku noolayd iyo dhib kale oo ka timi dad ama maandooriye isticmaala ama dirayska ciidanka ku qaraabta oo dhib geysta horta meeshu waa magaalana wax walba waa yeelanaysaa
magaalo waxbaa lagu dilayaa, waxbaa lagu dhacayaa, waxbaa la xadayaa, waxbaa la mishimayaa, waxbaa la dafayaa. magaalo horta calaamaadkeeday ka mid tahay. magaalo kastaana markay weynaato way la kordhaysaa inay maaragtay waxyaabahaasi ay dhacaan. intaasoo dhan marka waynu arkaynaa, laakiin waxaynu qiimeynaynaa war maxaa intee kororku dhan yahay. waxaynu fiirinaynaa kororka. waxaynu dareemaynaa ayaantan inuu ku dhacay koror dhinaca mobile furashada ah oo weliba dhallinyaro abaabulan ah. dhinaca kale waxaa dhacday hal dhacdo oo lagu isticmaalay hub oo lagu dhacay hanti. waxaan filayaa dhacdadaasi dhacdadii ka horreysay 4 bilood ama 5 bilood ka hor bay dhacday, laakiin innagii waa ka argagaxnay sababta waxaynu arki jirnay ma aysan ahayn. xaq baynu u leenahay. waxaynu rabnaa marka garowe waxay amnigoodu ku dhisnaa 100% wuxuu ahaa dadweynaha. welina waxaa la rabaa inuu ku dhisnaado waa dadweynaha. magaalo amniga haddaad aragtidna waxaa amnigeedu ku dhisan yahay waa dadweynaha. sida taliyuhu qaybtoodii ee taliyaha saldhigu idiin sheegay, meel kasta qof ciidanihi ma taagna, mana suurtoobi karto in la taago. laakiin meel kasta waxaa jooga qof shacab ah oo arkaya dembigu markuu dhacayo. qofkaa waxaa la rabaa inuu ribood gareeyo dembigii dhacay. hadduu garanayo ciddii dembigaa gashay uu yidhaahdo dembigaa ciddaasaa gashay. hadduusan garanayn inuu yidhaahdo tilmaamo yidhaahdo ninkii qofkii galay noocayo noocayo noocaas u ekaa saayo saayo saas buu u qalabaysnaa, waxaasuu sitay, halkaasuu u orday, isagii uu tilmaamo. markaa ciidanka waxaa u sahlanaanaysa inay raadraac sameeyaan. waxaan idinku bishaaraynayaa kayskii halkan ka dhacay oo haddayna ka yaabiyey, hay-adaha baaristu waxay nagu wargeliyeen 75% in gacanta lagu hayo ciddii geysatay. waxaynu maanta u shirnay oo halkan isugu nimi waxay tahay inaynu ka shaqayno xaafadaheenna aynu degannahay inay nabad noqdaan. isku xirnaan la'aanna waxba ma shaqayn karaya. waxaa la rabaa xaafaddii iyo waaxdii iyo dhallinyaradeedii iyo haweenkeedii iyo odayaasheedii oo isku xirani amniga xaafaddooda horta inay ka tashadaan. ma jirtaa xaafad qabata shir amni oo xaafadda gudaheeda ah. xaafaddii qabata waa xaafaddaa gacanta ha taagto. horseed, xaafadda horseed waxaan qirayaa inay tahay xaafadda ugu amniga badan garow. waxaa creditkaa iska leh, ammaantaa iska leh maamulkooda, xaafadahooda, dhallinyaradooda iyo hoggaankooda muxubbo oo u shaqaysa si hagar la'aana. aad baan idinka mahadcelinaya. waxaa degan guddoomiye ku-xigeenka wuxuu tagaa isagoo aan wax istaafa wadan ayuu gurigiisa tagaa. haddaan arko anigu mararaan geeyo aan arko dhallinyaro meelaha farfadhidaan waxaan idhahdaa war dhallinyaradan bay khatar ku geliyaan. waxay yidhahdaa war maya kuwaani waa kuwa waardiyeynayay xaafaddii dhallinyaradayda ahayd baa waardiyeysa. xaafad walba sida aan ka rabnaa waa sidaas oo kale. ayagana waa ku abaalmarinaynaa. waxaan rabnaa eedda iyo eeddu waxba tari mayso. mas-uuliyad baa ina wada saaran. aniga tani saaran ayaa guddiyada xaafadaha iyo guddiyada waaxyaha saaran oo inay amniga iyo nadaafadda iyo horumarka xaafaddooda ka shaqeeyaan, waaxdooda ka shaqeeyaan. taasaa saaran. qofba level bay u joogtaa. yaa u sii gacan dhudhuuban midba midku uga sii hooseeyo. waax walba waxaa laga rabaa inay u diyaar garowdo sida waaxdeedu ay nabad ku noqon lahayd. waxaa la rabaa waxa dhibaatada la gaarsiinayo, amniga laga khalkhalinayo, nabadda laga hadlaynayaa waa dadkii deganaa waaxdaas wey. waxaa la rabaa waax walba inay u diyaar garowdo inay dhallinyaradeeda abaabusho, haweenkeeda abaabusho, odayaasheeda abaabusho, xaafaddu hoos u shirto, diyaar garowdo. waxaa jira waxay iyagu wax ka qaban karaan. waxay wax ka qaban karaan inay yidhaahdaan ilmahan ina dhibaya waa ina hebel oo islaantii hebla ahayd baa dhashay. inay u tagaan oo yidhahdaan ilmahaaga naga qabso, haddii kale waa ribood garaynaynaa ninkaan inuu dembiile yahay.
inuu qofku qabsadana waa dhici kartaa inuu qabsan waayona waa dhici kartaa hadduu qabsan waayo iyagoo aan ka baqaynin waa inay ribood galayaan yidhahdaan wiilkaani xaafadayada wuxuu ku yahay dhib buu ku yahay hana la ka qabto ciidanka boolisku waa ballan qaadeen saacad walba inay diyaar u yihiin annaguna waa ballan qaadaynaa haddii aadna soo gaarsiisaan oo ayan intaa hore ku xallismin inaannu soo qabanno oo aanu maaragtay ka howlgallo sidii loo qaban lahaa maanta marka shirkeennu ma ahayn eed iyo eedka tuur eedda amniga anigu isdhigashaan u haystaa xaafadihii waa isdhigteen maamulkii waa isdhigtay xoogaa yaroo arrinaha baa ku jirto ciidankiina tababar baa loo qaaday dhowaan buu imaanaya iyadana waa soo dhammaystiray waxaynu marka hadda u baahan nahay qof walba inuu mas-uuliyaddiisa qaato su-aal baan rabaa inaan weydiiyo 3dii habeenee u dambeysay macnaha dhacdooyinka dhacay ma yaraadeen mise waa bateen 3dii beri oo u dambeysay dhacdooyinka dhacay way yaraadeen ayaduna meel kale ka timiyo hay-ado kale oo awal isku xirnaanshahoodu muhiim ahaa baa la isku xiray waxaan rabnaa hay-adaheenna iyo maamulkeenna iyo nidaamkeenna iyo xaafadaheenna inaynu isku wada xiran qof walbaa mas-uuliyadda uu leeyahay qaato ka warrama inteennaasoo dhan oo meesha wada fadhina oo qof walbaa wixii uu arko iyo wixii xaafaddiisa ka dhaca uu dabagalo soo ogaado soo ribood gareeyo la qabto ma dembiilayna ku dhex dhuuman karaa waxaan rabnaa xaafaduhu iyagaa ugu muhiimsan amniga magaalada waxaa inoo soo hartay meesha waxaa la yidhi raggii waa ku yaryahay xoogaa xaynaa halkan ka muuqata haweenkuna waa ku badan yihin waa run arrimo badan bay noqon kartaa waxay noqon kartaa haweenku inay uga daacadsan yihiin ragga shaqooyinka lagu qabanayo iskaa wax u qabso waa idinka mahad celinaynaa laakiin waxaad ogaataan xaafadaha doorashaa la galaa waa lagu legdamaa waxaa laga yaabaa tii aniga laygu doortay iyo tii maaragtay madaxda xaafadaha lagu doortay inay adkay tii madaxda xaafadaha lagu doortay baa laga yaabaa qof walbaa marka isagaa mas-uuliyadda soo raadsaday soo rooray hawsha inuu qabto damcay mas-uuliyaddiina waa saaran tahay waxaa la rabaa inuu qaybtiisa qaato waxaynu rabnaa inaynu wada shaqayn dhow yeelanno hadda wax walba waa heegan ciidanku waa heegan maamulka gobolka iyo degmadu waa heegan dowladdu waa heegan waxaa loo yahay in la qabto wax allaale wixii amni xumo magaaladan ku keenaya ciidamadu waxbay ka cabanayaan waxay leeyihiin annagu qofkii haddii la soo qabto kama bogan karro waalidkii baa daba jooga waalidkiina waa waalidkeennii innaguna waynu naqaanaa anigu odhan mayo waa idinka raaligelinayaa idinkaa carruurta dhalay iyo idinkaa daba jooga dhihi mayo laakiin dadkeennii reer garoowe magaalada deganaa col meelna kaga soo duulay miyaa garanaysaan meelna colina kagama soo duulay waxaa la rabaa innagu inaynu marka isxallinno ka bilowna xaafadaha idinkaa og soo gudbisaan haddii wax laga qaban waayana annagana ula xisaabtantaan saacaddan laga bilaabo guddoomiyayaasha xaafadaha guddoomiyayaasha waaxyaha shir gaar oo kale aanu qabsanaynaa waxaan rabnaa liiska dadka caadaystayaasha ah inaan helno liiska caadaysta haddaan helno ku dhibaatoon mayno gurigooda aan ugu tegaynaa waa kala soo baxaynaa sharcigaanna marinayna laakiin idinku ha dabcinina qofka dhibta kuu geysanaya looma boqo eedna lagama boqo mas-uuliyad haddaa qaaday eed lagama boqo mas-uuliyad baa qaaday qof walbowba waad ku eedoobaysaa iyo maxaa la yidhahdaa maame heblaa maaragtay haddaa wiilkeeda sheegtid hadhowti adiga ku eedaynaysa ama qolaa ku imaanayso ku odhanaya wiilka iyaga adaa bahalkaa ku sameeyey oo dacwada ka geeyey waxaa xagga iska dhiga ballan ma tahay wax kasta oo dhib magaalada u keensanaya oo hadda walwalka aynu qabno inoo keenay kadib waxaad isfadaysaa markaa waxaad sheegtaa waxa annaga nala ka rabo waxa annaga nala ka rabo annagu waa qaadanaynaa laakiin idinka waxaan idinka rabnaa inaad soo sheegtaan haddii guri khamre lagu gado haddii maxaa la yidhaahdaa dembiilo joogo haddii ciidan hubaysan ku jiro haddii qof maaragtay wax hadaa jiro waxaan idinka rabnaa riboodka haddaa garoowa 3 beri gudahood la waayi waayo annagaa eeddaa qaadanayna
laakiin idinka waxaan ka rabnaa saddexdaa beri gudahood inaad xogtanaysaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka gudoomiyaha degmada xooghayaha golaha deegaanka taliyaasha saldhigyada gudiyada xaafadaha bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin dhegaysanayay reer garow waxaan u malaynayaa 9 xaafadood waa dhantiin 8 xaafadda jilabna waa ku jirtaa maanta 9 waa dhantiin horta ilaahay baa mahad iska leh caalamka meel kastoo maanta la fiiriyo Soomaalidu waxay tiraahdaa cantuuga jilal cambacambo bida garow waxaan u malaynayaa waa meesha ugu badan oo la leeyahay barwaaqa ka jirto nabad baa ka jirta oo caalamka looga soo socdo oo dadka degan ay ku nabad qabaan waxaan ku xaqiijinayaa inteynaan baalka nabad u fadhida nabad baa ku timaadeen nabad baa ku tagtaan guryihiinii baad joogtaan wiilashii aad dhasheen baa inta 2-3 telefoon idinka qaadeen baad waxaad tidhaahdeen magaaladii amnigeedii faruu ka bax waxaan ku xaqiijinayaa middaa waxaa fadhiya taliyihii saldhigga dhexe aniga iyo gudoomiyaha degmada iyo guddiga amniga gobolku waxaan u yeeranay dhammaan laamaha amniga ee qusayso hawsha tani waxaanu la galnay shir waxaanu niri caqabadahaana dadku ka cabanaya cabashadiinni markaa noo keenteen waxay xaqiijiyeen inaydan hal case oo ribora aydan u keenin CID-da oo kaysaska baarta ayaan waxaan ka codsannay inta case ee la baaray maxaa dhiba oo la geystay garow oo dhan 4-5 toori ayaa loo geystay 3 bilood la soo dhaafay kaysaska moobilada ee la keenay 20 kama badna dadku hadday waxooda qarsadaan oo guryahooda ku haystaan see loo ogaanaya idinka iyo booliiska maxay tahay dhibta idin dhaxaysa booliiski waa kana waa heegan weeye shaqadiiba 24 hours ku jira aniga iyo gudoomiyaha degmada waxaanu tagaynaa qaybta habeenkii waxaanu fiirinaa sida shaqada u socoto war maxaa la idin keenay war yaa telefoon soo furtay halkaana loo ku yimaadaayo nin baa noo yimaada siyaasi hore u ahaan jiray ama sarkaal hore u ahaan jiray wuxuu yidhahdaa gurigaygii baa xaaskayga telefoonka laga qaaday hadda xaaskaaga telefoonka haddii laga qaaday adigu dowladnimadaaba taqaanayo sarkaal horena waad ahaan jirtay siyaasi horena waad ahaan jirtay maxaad riboodka u geen weyday qaybta iyo booliska waxa kani ma aha shaqo dadkeennu iyo dalkeennu aqbali karo waxa kani waa wax abaabulan oo inoo yimid in telefoonada gabdhaha laga qaado waayo waxaa la ogyahay inaad tihiin dad aan iyagu hubaysnayn hooyooyina isu turaya xaqiiqda amniga aan carruurtiina ka sheegayn niman siyaasiyiina dan gooniya leh oo dalka kan xilal horey uga soo qabtay qofku markuu xil horey u soo qabto waxaa la rabaa opposition leader baa la yidhahdaa kuwa hadda haya inuu yidhahdo waa ka fiicannahayo waagii aan joognana waa ka fiicnan haddana waa ka fiicnaanayna lama rabo inuu dalka khalkhal geliyo oo siyaasad ahaan u geliyo amni ahaan u geliyo siyaasad ahaan dalkan khalkhal uma gelina amni ahaan bay khalkhal idinku geliyeen guryaha idiin joogaan soo dhagxiya oo barxadda keena waa xirxiranaa intaa waxaan ku darayaa ilmaad dhashaan case baa nin halka igu keena wuxuu yidhi telefoonkii gabadhaan dhalay nin ciyaal baa ka qaaday waa dariskayga oo dariskaaga hadday yihiin soo kuwii la yaqaano inaad taqaanid ahay maahan ma garanayno see baad u ogaatay marka dariskaaga inay yihiin maya xaafad noo dhow bay ka soo baxa oo xaafaddii ma tagto ma weydiis cid ahaayeen maya maannaan weydiin marka waxaad garanaysaa waxa kan inay brobogaam yihiin waxaa laydinka baahan yahay idinka reer garowa inaa amnigiina adkaysataan amniga haddaad dowladda ku eedaysaan war bal amniga bal fiiriya amnigaynu qaaxaynaa maanta war dowladdu waxay idinka hortaagan tahay cadow furin bay idinka hortaagan tahay oo ciidamaad jooga oo dowladdu maamusho garowa waa hore lisugu soo geli laha haddaan ciidamada joogin war dowladdu waxay idinka hortaagan tahay al-shabaab iyo cadow daacis siyaasad ka imaanaysa soomaaliya qaybaheeda kala duwan waxaa loogu talagalay amniga iyo jiritaanka dalka in la baabi'iyo dowladdu habeen iyo maalin waa shaqaynaysaa ciyaalkiina telefoonada idinka furanayay oo guryaha idiin joogay haddaad tidhaahdaan mana naqaano soo sheegi mayno haddii la soo qabtana waa laga daba imaanayaa taasi waxay noqonaysaa haddee annagu inta guryaha nimaan inaad kala shaqayno oon telefoonada marka guryihiina laga furto aanu nidhaahno hebel iyo hebel buu ahaa waxaa xaqiiqa oo maragma doontaa dowladda puntland ee hadda jirtaa inay amniga ka shaqaynayso priorities iyo waxa ugu horreeyana amnigu yahay waxaan ku xaqiijinayaa
hal case markaa sheegtaan oo telefoon oo magaalada ka dhaco madaxtooyada lagala soo xiriiraa madaxweynaha Puntland wuxuu rabaa in dalkan nabad ahaado shaqo hoose weeye oo la rabay inta idinku aad tagtaan inaad qabataan oo booliska tagtaan oo report garaysaan taasi waa midda kale waxaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaanu dalabnay 9 xaafadood iyo sportskeedii iyo caruuraha war maxaa ka maqan garoon baa jiray weyn oo dhismo u socdo oo hadda u dhamaanaya oo injineerka la sugayo cawska u dhig lahaa iyo roog laakiin waxaanu hore u sii qabanay inaan garoon u kreeno garoomadii iyo estimation markii la soo sameeyay waxa la yiri waa $1,800 waxa laga rabaa xildhibaanada deegaanka iyaga naga qaaday ma aha gudoomiyaha degmada xildhibaanadaan ka rabnaa taa waa ballan qaadeen waana keenayaan 9 iyo 10 ciyaarood oo soo socda baan u qaban doonaa inta laga gaaray inta garoonkooda loo dhisayo waxaan rabnaa iskuulaadka in lagu celiyo in wacyigelin la sameeyo hooyooyin wanaagsan oo waxa tihiin nabadda iyo amniga meeshan ay joogto soo gaarsiiyay waxa la rabaa inaan habca dhicin waxa tiraahdeen iftin baa wax lagu furtay oo lagu dhacay ha waa run laakiin ma isweydiisan iftin meesha ku taalo imisa ummad hor taagneed imisa garanaysay imisa ka aamustay hal qof oo kiis keena oo waxa la waayay reer garow ay yiraahdo warsaas oo kaayana gaarigaas oo ka ilaa markii dambe laamaha amniga iyo security-gu ay shaqadooda qabsadeen maantana sidii gudoomiyadu degmadu sheegay 75% 75 ayay meel fiican maraysaa in la soo qabto waana ballan gacan bira lagu soo qabto inagu marka waxaan u baahanahay sideedaba dawladda marka la yiraahdo dawladnimadu horta qofka ka bilaabata self governance baa la yiraahdaa qofku waxa loo baahan yahay inuu isaga dawladnimo ka bilaabato inuu dadka amnigeeda ilaaliyo amnigiisa ilaaliyo dariska ilaaliyo isla ixtiraamo wixii khaldan soo sheego dawladnimadu haddii halka ka bilaaban kor kama bilaami karto ma jiri karto marka waxaan u baahanahay hadaynu reer garownahay nimcaynu haysanaa barwaaqaynu haysanaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin inteenna halka fadhida waxaan u maleynayaa kulli ganacsataa tihiin sida ay Fuad sheegtay waxay tiri caruurtan waxa maalinna ganacsataa wadana been ma marka waxa la rabaa in ganacsigaasi barwaaqadaasi aynaan freena ka bixin magaalooyinka kale ganacsiga ma yaalo barwaaqadaasi ma yaalo wargarow maalin wata nin dhagax jamiican waxa ay iga waran industry-ga dhagax xuseeya wuxuu yiri waaba weyna dhagax dhan baan weynaba waxaanu ka soo gurnaa meel fog oo aan magaalada u dhaweynba marka taasi waxay cadeynaysaa inaynu barwaaqo ku jirno kuwa ariyaha gadaan waxaan war ariyaha ka waran waxayna goortaan u keenno baa la kala gataa war guriga dhisid barwaaqo qudaarta suuqa dhulka ma dhacdo alxamdulilaahi rabbil caalamiin dad baa inoo yimid magaaladan amnu yimid inaynu ilaashano oo horumarkeena ilaashano iskuulaadka waxaad arkayseen Puntland iskuulaadka imtixaanka la galay caruurtii ugu sareysay reer nugaaleed bay ahaayeen reer garow u badnaayeen waxaa la rabaa tacabkaas iyo xooggaas iyo maskaxda iyo juhdiga aynu caruurteennii gelinay inaan mustaqbal uga tagno inagu maanta waa noolnahay dad waaweyn baynu nahay laakiin caruurteennu meesha hadda ay marayso iyo meel ka xun haday ka bilaabmaan dee mustaqbalkooda iyo noloshooda ku ciyaarina waxaan u baahanahay nolol degan oo ay ku nooloodaan oo ay barwaaqo iyo bashbash ay ka qaadaan oo horumar adduunka ay kula xisaabtamaan inay gaaraan haddaynaan inagu siin foundationkaasna la heli mayo inaynu halka isugu nimaano oo is-eednama waxaa la rabaa sida xaafadda horseed ay sheegtay anigu gudoomiyaha gobolkan ahay gudoomiyaha degmada ma ahay laakiin horseed inta gudoomiyaha degmada u tagtay anigana xafiiskayga ugu timaadaa waxay tiraahdaa gudoomiye amnigaan ka shaqaynayna xaqiiqatan meeyo gudoomiyihii horseed aad iyo aad baan u bogaadinayaa shaqadaada xaqiiqatan degmada Garowe waa degmo waxay soo gaarsiisay shaqadeeda heer level regional oo gobol aad iyo aad baan waxaan marka u mahadinayaa idinkoo idil laakiin waxaa la rabaa in shaqadaas oo kale la qabto gudoomiyaha degmada iyo consulkiisa iyo xoghayaha dhammaantood waxaan ka codsanayaa in xaafadda horseed abaalmarin gooniyo la siiyo in tartan la galo oo xaafad kasta ay sanad iyo bille ugu guulaysato iyo wiiglaba annagu gobol ahaan shaqadan waa shaqo inoo wada taalla degmada Garowe waa caasimadii Puntland reer Puntland dhanba u taalla qof kasta oo Puntland ku naaloonaya waxaan rabnaa marka in degmadana ay noqoto degmo
caalamku ku leh meeqaam gooni ah waxay ku leedahay hadda spot position bay ku leedahay meel ay fadhido laakiin inay meeqaam gooni ku yeelato oo adduunka security-giisu ay noqoto number 1 haddaan la helin amni nolol jiri mayso waxaan idinku bishaaraynayaa ciidamada amniga ee ka howlgala hadda degmada Garowe inay yihiin ciidamo ka tiro badan ciidamadii hore ka tayo badan ciidamo gooni idinka idin ah oo reer Garowe kaliya u shaqaynayana tababarkooda u soo dhamaaday ay imaanayaan xalay iyo habeen hore iyo habeenkii ka horeeyay been isu sheegay irbada laga qaaday dhulka ciidamadu si fiican bay u shaqaynayeen amnigu waa fiicnaa gabdhaha fadlan telefoonada la idinka qaaday oo la sheegay in la soo report gareeyaan rabnaa qofka idinka qaaday sida uu u egyahay da'diisa qiyaastiisa dharka uu qabo xaafadda uu meesha joogtaan in si dhaqso leh loo soo report gareeyo qofka kuugu dhow u tag number baa jira taliyihii saldhigga dhexe waa fadhiyaa numberkiisu siiyey kii waxaa jira guud soo waca waxaa la rabaa ciidamaduna inay markaasba ay ka bixiyaan reaction oo ay yimaadaan xalay anigu waxaan fiirinayay ciidamada booliska ee degmada Garowe xaqiiqatan aniga waxaan wacayay shaqadooda bal fiirinayay minute bay ku imaanayeen minute telefoonka waa ku qabanayeen waxaa la rabaa marka ciidamadii waa idin diyaar dalka kan inaa khalkhalina ka gelin niman dangooniya leh nin kasta oo horay xil u soo maray ama hadda raadinaya waxaan ugu bishaaraynaynaa war xilalka kani waa wareegto nin kursiga fadhiyay ma jiro gobolada kale oo dhan baa shaqo u baahan haddaad shaqo rabtaan dalka khalkhal ha gelinina ilmihiinna iyo caruurtiinna u tura asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamaya TV-ga STN arrimaha aan ka hadlayna waxa weeye waa ammaanka sidii ammaanka looga wada shaqeyn lahaa Garowe ammaankeed aad buu fiican yahay ciyaar yar oo xoogaa fara ku tirisa oo la garan karo lana ogaan doono insha Allah iyagana aan qaybna hayno inta kalena aan soo qaban doono guri waxaan leeyahay waalidiinta caruurta dhashay waxaan ka codsanaynaa in ilmahaas gacanta ku soo dhigtaan haddii gacanta ku soo dhigan anaga gacanta ku soo dhigayna meelaha ay joogaan waa reenaynaa insha Allah haddana waa ku daba jirnaa wax siyaada ah in wax walba la bombomiyo caasimadda la yiraahdo waxba ka jira wax ka jira ma jiraan falalku waa iska dhacaanin caasimaddana waa amniga anaga diyaar ah inaan u dhimanno waajibaadka inaan gudano waxaan kaloo ka codsanayaa 100% mar walba ku celinayaa hal iska daayo ciyaalada laga daba imanayo oo roobaleyda ah anagu haddii laga yimaado waxaan ballan qaadaynaa iyagana ku tari doono aad baa u mahadsan TV-ga waa salaamaya